بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعن داوديال كسر دوادا قضبضا وركود وين أنا ذن هنا وحكمدا حالة السياسات مقدشة أو كعسن معارض كو عدد سلسارة يقرشيال عصب أو حساسية أو كسعونية مقدشة قضب كاسو وفافاسنا يدوركين كو داودوتان هدو الإرادو بلس صاحبيال وعن ذكا عصانينا سبسكرايب سرطان جنال كسيادو هشان وركي معلومات كالكن أنسوكرينو ما السندين دمانتين بأينكو بلاونو magaalada muqdisho ayaa xaalad siyaasadeed oo aad u kacsan waxay wajahaysaa iyadoo warar soo tirayay sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay wado qorshayaal lagu cadaadinayo xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho wararka soo baxay ayaa tilmaamaya in hay'adaha ammaanka iyo hoggaanka sare ee dowladda ay ka fikirayaan tillaabooyin adag oo ay ka mid yihiin in waran sharci ah lagu soo saaro siyaasiyiin mucaarad ah isla markaana loo jaro iyo sidoo kale in laga laabto ciidamo ilaalada u ah qaar ka mid ah xubnahaasi macluumaadka ayaa sheegaya in dawladdu ay qorsheynayso in waaran soo qabasho ay u jirto xubnaha siyaasiyiinta ee waaweyn isla markaana ay ka mid yihiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Cali Kheyre xubnahaas ayaa la qorsheynayaa in maalmaha su'aadan ay dawladda Soomaaliya ay qaado tillaabooyin waaran soo qabasho ah sidoo kalena ilaaladooda lagala laabto muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa si tartiib ah u soo ifbaxaya dhaqdhaqaaqyo lagu xadidayo awoodda mucaaradka waxaana la sheegay in qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka laga qaaday gaadiid dagaal ay hore u haysteen taasoo ahayd tilaabo bilow ah qorshe weyn oo hadda u muuqda mid sii ballaaranaya ilxoogaal ayaa sheegay in hadda la qorsheynayo in siyaasiyiinta qaar lagu soo rogo waaran iyadoo lagu eedeynayo inay haystaan hub sharci darra tani waxay si toos ah u saameyn kartaa awoodooda dhaqdhaqaaqa iyo abaabulka arrintan ayaa imaanaysa xilli ay sii kordhayaan kulamada mucaaradka iyo qorshayaasha ay wadaan ee la xiriira mustaqbalka siyaasadeed ee dalka ciidamada ilaalada oo lagala laabanayo mucaaradka mid ka mid ah tillaabooyinka ugu culus ee la hadalhayo ayaa qorshaha lagu doonayo in ciidamada ilaalada oo ah siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood laga laabto haddii tillaabadan la fuliyo waxay ka dhigan tahay in siyaasiyiintaasi laga dhigo dad aan haysan ilaalo rasmi ah taasoo keeni karta cabsi amni imid siyaasadeed dowladda Soomaaliya waxay arrintan ku micneen kartaa in cid kasta oo hubsita ay tahay inay sharciyeysato hubkeeda balse mucaaradka ayaa u arki kara tallaabo si gaar ah iyagoo lagu bartilmaameysanayo warbaahinada ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in la ilaaliyo xukun haynta dowladda gaar ahaan marka la gaaro taariikhda 15 May oo madaxweynaadkiisa ay ku eg tahay taariikhdan ayaa loo arkaa mid xasaasi ah iyadoo laga cabsi qabo in mucaaradka ay abaabulaan mudaharaadyo ama dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo culus si taas looga hortago waxaa la sheegay in dawladdu ay qorsheynayso in la mamnuuco isu imaatinka siyaasiyiinta in la xakameeyo kulamada mucaaradka in la adkeeyo ammaanka guud ee caasimadda tillaabooyinkan ayaa muujinaya cabsi laga qabo kacdoon siyaasadeed ama cadaadis lagu saaro dowladda Soomaaliya dhinaca kale xubnaha mucaaradka gaar ahaan kuwa loo yaqaan samata bixinta ayaa la sheegay inay wadaan abaabul siyaasadeed oo ka dhanaha dowladda kooxdan ayaa u aragtay in dowladdu ay ku socoto wadaan sharci ahayn isla markaana ay doonayso in muddo kordhin ama siihaynta awoodda si aan loo marin hanaan heshiis lagu yahay waxay sidoo kale ka digayaan in la caburiyo xorriyadda siyaasadeed iyo tan hadalka iyagoo ku baaqaya in la ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniinta xaaladda Muqdisho hadda ka jirta waxay isku dhaxmilmaysaa laba arrimood oo waaweyn kow amni dawladda oo sheegaysa inay sugayso ammaanka iyo kala dambeynta labo siyaasadda mucaaradku oo arko tillaabooyinka kuwa lagu caburinayo isku darka ayaa keeni karta xaalad halis ah haddii aan si taxadar ah arrintan loo maareyn maxaa dhici kara mustaqbalka dhow haddii xaaladdu sidan ku sii socoto waxaa suuragal ah dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin kow in xiisadda siyaasadeed ay sii kororto labo in mudaharaadyo ay ka dhacaan Muqdisho saddex in la arko isqabsi u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka ama in la helo wadahadal xal keeni kara dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa aaminsan in xilligan uu yahay mid go'aan qaadasho u baahan isla markaana haddii aan xal degdeg ah la helin ay xaaladdu ka sii dari karto xaaladda Muqdisho waxay maraysaa mid xasaasi ah oo u baahan feejignaan dulqaad iyo wadahadal dowladda federaalka iyo mucaaradkuna
waxay haystaan door muhiim ah oo ku aadan mustaqbalka dalka waxaana muhiim ah in laga fogaado tillaabo kasta oo keeni karta isku dhac ama qalalaase indhaha shacabka Soomaaliyeed ee kuwa caalamka waxay hadda ku jeedaan waxa ka dhici doona magaalada Muqdisho maalmaha soo aadan ee tillaabooyinka xiga oo ay qaadi doonaan dhinacyada mucaaradka ah xubnaha mucaaradka oo aad u fahansan qorshaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyagu bilaabay abaabul xoog leh waxayna dhaqaale badan ay ka heleen Imaaraadka Carabta kuwaas oo si weyn u maalgelinaya xubnahan waxaana la sheegay in mucaaradku ay doonayaan inay ka hortagaan abaabulka dowladda federaalka Soomaaliya iyagoona qorsheeyay in ay dejiyaan shax cusub oo ay kula dagaalamayaan dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhinacyada ayaa markan isku arki doona waxayna ku hardami doonaan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho dowladda waran ay qorsheynaysaa oo soo qabasho xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka balse siyaasiyiintu way fahansan yihiin shaxda dowladda waxayna diyaariyeen ka hortagga qorshahaasi sidoo kale dowladdu waxay doonaysaa inay qaado tillaabooyin arrimahaas looga hortagayo wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Yuusuf Dhuumaal ayaa isagu waxa uu sheegay marnaba la aqbali karin tillaabooyinka xilligan ay qaadayso dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka dhanka ah mucaaradka dowladnimada Soomaaliya qori isu dhiib bay ahayd annaga ka Jubbaland ahaan waxa nooga qorsheysan inaan dadka Soomaaliyeed qori isu dhiibkii iyo madashi iyo qaabkii iyo sidii dadka Soomaaliyeed maxaan ku dhahaa muddadii lagu soo hogaamin jiray maxaan ku dhahaa dib loogu noqdo wada tashigii iyo taladii dib la iskugu noqdo dowlad goboleedyadii loo yeero dadka waxgaradka ah oo aqoon-yahanada oo Soomaaliyeed loo yeero madasha oo dhan loo yeero marka in shir loo dhan yahay oo Soomaalinimo ah oo dowlad Soomaaliyeed maxaan ku dhahaa shalayto sida calanka iyo ummadda Soomaaliyeed loogu dhiibay madaxweyne Xasan Sheekh oo loogu dhaariyay tiyo kale in la sameeyo laakiin waxa kale oo dhan oo la tumahayo waa jugjug halkaadi joog waana wax riwaayad ah marka yaan waqtiga laga qaadan ummadda Soomaaliyeed uma baahno qof laablakac ku yimaado uma baahno qof hanti aruursado uma baahno qof baabuur dhowr ah iyo xayn qabiilo ah oo dhalinyaro ah ka shaqeeyo Soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiye asal ah oo dadka Soomaaliyeed usha u qabto oo da'yarta oo maanta jiro oo hogaamiyo guud ahaan daawadayaal wararkii aad ka daawanayseen channelka waa nageetaas amaan Allah